Dhalinyarada ciyaaraha ama kubadda cagta xiiseeya ee ku nool deegaanada Somaliland, khaasatan magaalada Hargeysa, ayaana si weyn dhacdadani caawa ugu hadalhaya. Kulan ciyaareed maanta ka dhacaya garoonka weyn ee stadium-ka ee magaalada Hargeysa ayaa halkaas waxaa ka dhacday dhacdo argagax xambaarsaneed kadib markii ciyaaryahan ka mid ahaa ciyaartoydii galabta ku ciyaarayay kubadda cagta garoonkaasi uu soo gaaray dhaawac culus. Garoonka oo xilligaas aysan diyaar ku ahayn waaxda caafimaadka ama gargaarka degdega, sidoo kalena goobta gaari ambalaas uusan ka dhoweyn si isbitaal loogu qaado qofka dhaawac uu soo gaaray, ayaa arrintaas waxay keentay in lagu qaaday gaari qaas ah oo shakhsi uu lahaa. Laakiinse ciyaaryahankii dhaawacmay intii isbitaalka loola cararayay waxaa gaarigii siday uu galay mar kale shil. Halkaas mar kale waxa uu dhaawac ka soo gaaray ciyaaryahankii dhaawaca ahaa walaalkiis oo xilligaas la cararayay dhaawaca walaalkiisa si caafimaad ama gargaar degdega ugu helo. Dhacdadana waxay noqotay mid xanuun badan. Walaalka dhaawaca uu soo gaarayna waxa uu ahaa dhaawaciisa mid culus maadaama gaariga uu galay shil xooggan. Ilaahay caafimaad taama ha siiyo labadan wiil ee walaalaha, hadda qalliin ayay ku jiraan oo isbitaalka weyn ee Hargeysa ayaa lagu baxnaaninayaa xaaladooda caafimaad. Wiilka dambe ee dhaawac uu soo gaaray waxa uu islahaa badbaadi walaalka oo ka gaarsii isbitaal si xaaladiisa loola tacaalo, laakiinse degdegii iyo sidoo kale dhaqsadii uu islahaa walaalka ku caawi ayuu isagiina shil ku sii galay gaarigii uu saarnaa. Labadooduba dhaawacyo kala duwan ayay qabaan oo caawa waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa. Aan wada duceyno in Ilaahay caafimaad taama uu siiyo. Xaqiiqdii waa dhacdo naxdin leh, isla markaana dhalinyarada kubadda cagta xiiseeya ay si weyn caawa u falanqeynayaan, khaasatan kuwa ku nool magaalada Hargeysa.